kale xuduudeedka Wajaale ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u socda sidii ay uga qayb gali lahaayeen askar bin xariistii jannaha ka waraabiya madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo maalinta beritaa lagu aasi doono magaalada Hargeysa waxaana magaalada Wajaale kaga hortagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland la taliyaha madaxweynaha Cali Maxamed Waraan Cadde soo dhaweyn kadib waxaa ugu horreyn madashaasi ka hadlay علي محمد وران عدي يوسير كحيانك وزارة أريمها دبدة وحنا يلهذين. تي وفتي قيمها بدن وزير ذي أفيانك برلمانك هي مدحضة كلا قيمها بدن ل دول دجان كالصومالي ذي إثيوبيا آدي أدبان دي سود ويننا رنتي وحكتر شو سيارة دني إن هاي وصلت كليه يددو وحسوها ولا لا ومحوها هاي دبعت ذا يدفت بقى وذا دريمية runtii waxay naga wada baxay haliyay qiimo badan Ethiopia muddo dheer joogay annagu waxaanu nahaa we are the leech of Ethiopia Somaliland markay tahay waxaanu nahaa waxa weeyaan Ethiopia dhashay waayo halkankii dheeraano galay markii aanu islayn 60kii soo celiyay xorriyadii meesha aanu ku tiirsanay waxay ahayd Ethiopia muxuu ahaayay Axmed Maxamed Siraanyo madaxweynaha horena wuxuu ahaa ragii halka ka bilaabay idin la bilaabay buu ahaa gogasho wanaagsan u dhigteen buu ahaa annagoo tii hore halkan idinka mahad celinayna tanna maanta waxaan idinka mahad celinaynaa ina nala qaybsanaysaan tacsida iyo tiraanyada aad iyo aad baan inkastoo imika halkii dhinacii Ethiopia aynu joogno laakiin markaynu xuduudda ka taloono aad baan idinku soo dhaweynaynaa dalkiinii labaad muxuu ahaayay waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan bay idinku soo dhaweynayaan dadka reer Somaliland waa shakhsiga igu soo aan awood isaga daraadii ugu soo biiray siyaasadda Soomaaliland sidoo markii ugu horeysan la kulmay sidoo kulul ii soo dhaweeyay sidoo xaaladaha Soomaaliland iga sheekeeyay waxuu ahaa Allah u naxariistay qof walba oo bilaadan ah meeshuu taagan yahay kala jaan qaadi karaya kuna dhiirin kale wuxuu doonayo marka waxa naga baxay Allah u naxariistay taa waa la wada huran yahay jabhad qof Somaliland iyo Soomaalido dhan wax badan soo qabtay ilaa intii Soomaalidu jirtay uu isaguna noolaa ilaa uu naxariisto wanu inka mahad celinayna inaad tacsida tiirayada la naga soo qayb galisaan aaskiisa la naga soo qayb galisaan waxaan anagu qiimeynayno maalmahan oo kale waa maalmaha walaaltinimadu muuqato marka aad baan inka mahad celinayna inaad noogu timaadeen aad naga qayb qaadanaysaan insha Allah aaska marxuun Axmed Maxamed Siraanyo ilaahu u naxariisto ilaahay jannada firdawsana ku deeqo dhinaca kale waxaa iyaduna madashaasi ka hadashay marwo ayaan cabdi oo ah afayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ay sheegtay in ay ujeedada u socdaan ay tahay sidii ay uga qayb gali lahaayeen aaska madaxweynihii hore ee Somaliland wafdigan aan hogaaminayo waxa soo diray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida isagana yidhi muxuu ahaay wafdiga inta hogaamiso anigu isaguna uu iman doona haddii Ilaahay yiraahdo Addis Ababa jooga diyaaraddu soo raaci doona aanu ma bari subaxii haddii Ilaahay yiraahdo marka aaska uu naga qayb gali doona wafdiganna dhulka ha maraan buu yiri marka team kanaan ku soconay waxaan idinku nimina wax kala ma aha dib iyo dheef dad walaalo ah oo darisa maadaameynu nahay dib iyo dheef inaynu wada qaybsano murugtiinuna waa murugtayada dhibkiinuna waa dhibkayaga marka tacsida inaan aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Somaliland inaan idin la qaybsano in kala qayb galno intaasaan u soconay isagana muxuu ahaay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aanu leenahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan idinka wadnaa tacsida inay ummadda iyo bulshada joogta ay idin la qaybsanayaan dhibkaas dadkuna waa dad wada walaalo ah oo daris ah inaan yaabtigiya marka de Soomaalidu haday soo wada abtirsato waxa la yiri ama xaga maagtuun bay noqdaan ama maadeerun bay noqdaan qaraaban qasam bay qaraaban qansaxun bay wada noqonayaan marka waxaan leenahay dhibka de geeri waa xaqna Ilaahay baa keenay isagana Ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannaha waasaca siiyo